maalin wanaagsan qaybtii labaad ee xiriirka af Soomaaliga iyo aftii hore ee faraacinada ayaynu hadda ku noqonaynaa. qaybtii hore waxaynu ka soo qaadnay xarfaha iyo sida aynu inala tahay inay leeyihiin tilmaamo u dhow afta Soomaaliga. haddana bal waxaynu eegaynaa ereyo ku qoran fartii hore ee masaarida oo laga helay buurahan waaweyn ee ahraamta la yiraahdo iyo meelihii ay dadka ku aasi jireen. erayadaa ku qorqoran baynu hadda qaar eegaynaa, kuwaasoo markaad u fiirsatid aad arki dootid qaar Soomaali ah ama Soomaali u dhow. anu micnaheedu maaha dadku af Soomaaliga ku wada hadli jira, micnaheedu waxa weeyaan afkaasi waxa ka u dhow oo ka qayb ka ahaa Soomaalida. marka waxaa laga yaabaa inay bahwadaad ahaayeen mar meel asal iyo ay meel ka soo wada bilaabmeen. bal hadda ereyada aaneeno inadoo ereyga for example waxaynu ka bilaabaynaa xarafta qa. xarafta qa halkan waxay hor yaallaa dhowr erey. bal hadda xarafku wuxuu weeyaan qa iyo sa iyo na. sidaynu hore u soo sheegnay farta masaaridii hore ma laha xarajo ama shaqalo, waxaa isbarbar yaallo sawiro tilmaamaya shibanayaal. marka halkan waxaa la isla xiriiray qa iyo sa iyo na. dabeedna wuxuu yidhi ninkii aqoon-yahanka ahaa ee afka bartay in fartaa lagu magacaabay, wuxuu yidhi waxa weeye difficult. waa difficult. qa sa na waa difficult, waa iritsam, wax kaa caraysiiya. talow kelmadaas haddaad iminka aynu shaqaladii Soomaalida aynu gelino oo aynu qa iyo sa aynu kala dhawaaqino marka xarfaha la sameeyo, waxay noqonaysaa qasan. waa arrin qasan. arrinta qasan waa arrin difficult ah. waad arkaysaa waa qasan kelmadii. waxaad arkaysaa halkan kelmad kale oo laba xaraf oo kale ka kooban oo waa qa iyo da. qa iyo da wuxuu yidhi waxa weeyaan build fashion. يعني guryaha waad aragtaa waagii hore buuraha iyobaa la geli jiray. markaa waxaa layidhi waa build waa fashion. kelmadii haddaad oo jelisid waxay noqonaysaa qod. waa ninkii wuu qotay meeshiisii. erey kale oo halkan ku qoran kelmad kale waxa weeyaan erey kale waa qa iyo da iyo da. waa qa iyo laba da. haddaad qalin qaadataad qorsid for example waa qa iyo laba da. wuxuu yidhi sleep slumber, يعني waxa weeye qof seexday. marka qa da haddaad tiraahid barata aad shaqa la tirisid qadaad bay noqonaysaa. waa ninkaasu qadaadku u seexday. waa nin seexdo qadaadku u seexday. halkan waxaad arkaysaa qa ra sa. qa ra sa wuxuu ku leeyahay berry coffin. waa baalkii naxashii dadka lagu qaadayay. markaa wuxuu yidhi waa qa ra sa. dee qa ra sa haddaan kaga dhawaajiyo oo shaqaladii geliyo qaris bay noqonaysaa. waa arrintii meydka lagu qariyey, waa qarisadii weeyaan. haddaan u gudubno xarfaha kale ee ka mid ah ha sa sin. haddaynu shaqalkii gelino oo haada iyo saada u dhaxaysino shaqal hees baynu noqonaysaa. heesna waa ingiriisida waa sin iyo heesow, oo waxa weeyaan ninkii heesaada ahaa ee heesayey ayana heesu bay yidhaahdeen. haddaynu ka sii gudubno waxaynu arkaynaa xa ba ta. wuxuu yidhi embrace waxa weeyaan caanaq u caanaqay. embrace waa xa iyo ba iyo ta. haddaynu jeljelino shaqaladii xabad buu noqonayaa. xabad kuu saaray. waxa weeyaan waa embarrassed xabad kuu saaray. xa iyo ya ayuu qoray. xa iyo ya wuxuu yidhi naked. yani waxa weeye qof qaawan. iminka haddaynu kelmadiisii yirno aynu xayd yani maradii buu iska xayday. yani waa isqaawiye weye, maradii buu qaawiyey ayaa ka soo baxaysa. haddaynu kasii soconno waxaynu u tegaynaa for example qa'dii dib ugu noqono qa ba
وحويان هدينو ترينو شغالذي وحتوليه وتول تول مرتا با وتول معناه وحويه قبو وحويه wax qabo weeyaan marta fasaamul mita erey wuxuu ka soo jeedaa qabo waxweeyaan haanta biyaha lagu qaado lagu shubto waxa la oran jiray ha qaboweyn turid qabo iyo qubays wixii oo dhan waxay ka soo wada jeedaan waa biyahaasi haanta lagu shubaya ayaa markaa isku qaboojinaysa markaa ku qubaysanaysa waxa qurux badan oo halkaa ka soo baxayna waagii hore gabdhaha yaryar ee Soomaalida marka hawl loo dirto moosheeda hadda yiraahdaan ilaa Hiblaayo waxa soo qabo hadday aragto inay shaqadu ku badan tahay waxay oran jireen sid qabax yani haya maana waxa soo qabanaya tolo sid qabaxda waxay ka tiri haddaad u sii baratid waxaad arkaysaa waxaa jirta dadkii hore masaalidu ilaahiyo badan bay caabudi jireen oran jireen ilaah tusheed تدان دينو سو ديارين باي هاي ديما سماو دينتان يومن marta waxay caabudi jireen waxyaalo badan marta waxay oran jireen cadeeta ilaaha cadeeta waxa jirta ilaah kale oo ma ilaah tusheed haday niraano inaan tabaabine oo sharxad sidata qabo sidata biyaha oo aroortii marta waad buriyo ilaa inta cadeetu dhacayso biyaha uu qaboojisa marta wax la oran jiray ilaahada sid qabax marta gabadhan waxay leedahay inta marka la yiraahdo turida soo fiiqa waxa soo qabo anigu sid qabax baa ilaa aroorti ilaa beeti biyaa qaboojinaysa marta wadartaysa eriyada wali ku sii jira af Soomaalida haday uu gudubno kuwa tale eriyada bal waxa tambida na wuxuu leeyahay waa evil miserable ووحن هو دمبيا مرتا waxaan oranayna baratay mutalaqa ilaasino ba iyo naadi ay shaqal dirino dirino waa been waa wax evil waa wax tata dibaato waxaan arkaynaa haday mutasiino ma ra wuxuu leeyahay ma ra waxa weeyaan bayn waa istuxid marta ما أراه حتى شغل دريسيد ومر هالشي ولا مري أما نبرتي ولا مري يعني واحد ويا وباين وحتروه ورنيا ما إيحاء هي واحد أجي على فل أما بي فل يعني هي وحي إلو بوح سماء أما بوحيو وحنا على عرفي وما حي وحويان بيه ما سوب في طول صباح يفل مثلا وماح مرة بعد هالتاسع واحد كذا ما تا وعرنيا وحويان ودد وواحد انتي ما تا إن الواحد أما تا دي وش شو بدلنا بدنا وحنا إن الواحد موت iyo nool wixii noolaana waa nool yahay wixii dhintayna mood baa la yiraahdaa waxa soo wax mooda oo wax dhintay weeyaan hadaynu ka sii gudubno kelmadihii kale aynu qaar sii darro waxaan arkaynaa ra ha waa ja iyo ra iyo ha wuxuu leeyahay night waa habeenku waa madow waa ja ra ha وصلوا محمية جاء راح بعدين تاخذ لنا الشغلة دي ديرينو ونقولنا يا أما جروح ما تقالين جروح وين نقالنا وحوي إيش أنت مذو أنت يرى مذو إيش أيا هذا إيش الجروح هذا جروح وواحد مذو تبع شراء قبائل الصومالية جروح اللي هذا جروح وحوي ومذو وهبين ودارت مرتا هو إيش الجروح هذا وكان مذو إيدم هذا يقول إنه حاد أو تلفون سابر وعن أرتينا نا هل كان موت إن ما تصبح حريف توعين ومرتي فرت قريين صور بيت الصمين يا وحي وعتورنا يا لبس بالي لا وعتوليه أريد مرتو قرو ينا إسبر بدي أيوه هذا صور نجي يايو هذا واحد انتهت لي يا صور تاسي أيوه رنا يا
marka sawirta waxa dambeeya for example waxa weeyaan alaabta ragta tala halka ku sawiran halkana na baa ku qoran daalkii wuxuu yiri waa bols sawde marka maxaad oranaysaa na iyo ninta alaabtiisa oo erayga Soomaaliga ah ee u dhow hadaad shaqalada dirisid waa xiniin weeye marka ilaa xiniintii waa meesha ku sawiranba wuxuu leeyahay ba taasaa yaab laba soo u timi waxa weeye ba wuxuu leeyahay conceal hide waa wixii aad qarisay wixii la hadaad timid Soomaalidu way sii jiidmaysaa xabaal badonaysa waa xabaal wixii waad qarisay na ayuu qoranayaa waa rash orod dheeray maxaad oranaysaa حين بابورتي وحيمي أما حين تروب تيسي هو واحد ديرين يا واحد أي صوب عيسى هدي الريال التيون وحنا نرتين ناو ترى كاف هي حاء بتصالت نوع تصورية all time يعني حوالي قف كبوبي ودالن oday ul hayso talaba sawirta soo baxaya marka waa tax marka soo hadaad kaafti xaadiyad aad dirisid waa tax baana intu waa tax waxa weeye qof daboobay oo taalay waa tax buu noqonaya hadii ay ka sii radudno waxaan nimanayna for example ka iyo sa لما نقول فورا tusaya marka wuxuu tuuranayaa board down of intensity marka waxa weeye waad istuustay hoos baad isu tuustaysaa mootaa waa board down waa sa halka waxay isbarbariyaan ha iyo ba laba bay iyo tuleeyihiin baada aynu adinka soo saaray aynu waa lud soo kale وأنا بطور كشيء سنة هي با فاذا ودو ويدنا وتاجن يعني بعض وصير فاذا نقطع على با المهسوسة وأفتح فضول ويبافن متى حبة هل تقولن حبة وعيدي ولو سيستم أنا الواحد لنا حب يعني حبتي وحلو ذي مرتا لو حب النقطة هل تبغى تقول را قا يا يتا را قا يا وحيري people طبعا people old people وعندنا رقيو يعني عوية رقية تيم يبغى رقية تيم تبع عيارة ودست عن تبت السعادة يا مريم تبت عيارة تا وحيري واب لوس وحويان بريس وعدك يسوى نف يعني وقفت نف صدي متى نف ستين نف أي وتاجته وحين تروح هذا اللي ما وهي يعبا توسسا مرتا وحي هو لف مرتا ما يلف حتى سيمنا جعيل حتى هذه سيلع إذا عادي بدون نقطة هي سيلع إذا مريا إساسي سومالي ما تقانو واحد معنا ولا بيريو سوماليا مريا إساسي مريو ساسي با maxay sase waa sas waxa weeyaan bood weeye gabadhu la ciyaaraya inadu waxaanu sas wali u naqaanaa ilmaha yar martuu ka boodee uu saseelaynaado laakiin sas waa soo bood afafta kale ee Soomaaliya ka sii farcama farsam sasam waxa la farsta la yiraahdaa waa tii boodayay marka sas waa bood marka markuu inta heesay uu leeyahay muriyay sase waxa weeye muriya tii du marnayday tii aan jeclaayay soo bood aan ciyaare muriyay sase marka muri waxa weeyaan mar hataa tiri waa maradii lagu xiliyay
markaa waa qofkii kugu xidhnaa waa qofkaas jeclayd weeyaan waa maryam bind waa mar waxaa jirta caruurta markaanu ahayn waxaa la ciyaari jiray demiska la ciyaaro waxay u sii jiraan ereyadu ku sii hareen sideen maalintii orto bita ula hadlaynay waxyaalaha ciyaarta ee caruurtu weli ku ciyaarto ayaa ereyada qaar ku sii jiraan hadhowtona wayba isa sii lumayaan oo ciyaartii markii la yidhaahdo laakiin anu maalin yaraa waxaan oran jiray dhegta intaan qabano ayaan oran jiray hebelow wabde wadayada ma oranaysaa wabde wabsagaara dabeed waxaan oranayaa yaa tu eeratay wuxuu oranayaa hebel baan tu eertay hebel waxaan oranayaa hebelow ma laga dooyaa markaas mise waa laga daaya markaa waxaan oranayaa ma yeekataa markaa waxaa la oranayaa wabde wabsagaarade haddaba talow maxay u jeedaan wabde wabsagaarade yaa tu eeratay waxaa jirta waxaa jirta kelmadda web waa kelmad soomaaliya ereyo badan baa laga soo dheegtaa waxaad ka soo dheeganaysaa for example waab gurigii baa la kala waabay webi yani dhulkiibuu kala qaybshay waa webigii dhulka kala qaybinayay wax la kala qaybinayo ayaa webtu ay ka timaadaa markaa webde waxbaa la kala qaybinaya waxaynu idhahnaa ama waa xukunta waxbaa loo kala qaybiya dad baa wax loo kala qaybiya wax xun iyo qaar wanaagsan iyo ayaa dadka loo kala qaybiya markaa wabar ayaa jira oo beelaha soomaalida qaar baa ilaa hadda suldaan iyo ugaas halka la baxa wabar markaa wabar waa xaakim waa ninkii wax kala qaybinaya ciyaartii caruurtana way ku jirtaayo waa taa websagaarade la leeyahay markaa maxaa la qaybinayaa haddaynu ku noqono masaaridii hore waxaa jirta caqiide ay aaminsanaayeen oo ah web maalinta xisaabta aakhiro dadkaas waxay aaminsan aakhiro inay jirto dadku markay dhintaan inay aakhiro la tegayo oo la xisaabayo sababta ay markaa ninkaas socdaal buu gelaya cuntadiisii iyo wixiisii iyo dharkiisii iyo ilaa hubtiisii baa lala aasi jirayoo waa waxay buuraha dhaadheer u dhisteen la yiraahdo ahraamta dadkaasay ku aasi jireen oo waxay oran jireen wuxuu tegayaa aakhiru u socdaa marka waxaa jirta webta yowmal xisaab bay yiraahdaan maalintaa la xisaabayo dadka la kala qaybinayo tii xumaa iyo tii wanaagsanaa ayaa la yidhaha webta sataar muxuu yahay sataar ama satar ama saqar bay yidhahdaan ama sataar waxa weeyaan haddaad aragtid kelmadda sad ama waxay ka imanaysaa siido iyo ciid weyaan oo for example sataarada waa samootahay ciidda ama sataartu waa intaynu ciidda saaro ayaa sataar la yidhaha markaa sad waa ciid wax ku saabsan marka ilaaha ciidda oo dhulka aakhiro ayay nimankaa masaaridii hore oran jireen waa sataar ilaaha sataar marka websagaarade waxau leeyahay waa ilaahay xisaabinaya dadka dhintaa markaa waxaad moodaysaa waad aragtaa sheekadii yareydee caruurta ku ciyaaraysa ku sii hadhay waxay salka ku haysaa falsafad dhan oo aakhiro iyo diin iyo ku saabsan oo ay dadkaa hore aaminsanaayeen markaa webde waxaa kaloo maartaysaa in xisaabta qofka la soo taaliyo maxkamadda dhegta la qabanayo iyo qofka kale markhaatida looda dhageer leeyahay dhegta ma ka gooyaa mise waan sii daaya waxa weeye waad arkaysa waxa weeye aakhiro qofkii baa la miisaamayaa waxa la yidhaha wadnahoodaa la miisaami jiray markaa ninta wadnihiisa miisaankii intaa ka yaraado waa nin xun intuu intaa ka weynaadana waa nin wadna fiican oo jannaduu gelaya howlaha intaasa ayay aaminsanaayeen marka riwaayadda yare caruurta ku ciyaaraysaa waxay masilaysaa falsafadii aakhiro ee halkan ay qoladii masaarida hore ay aaminsanaayeen